isoo noqosho wanaagsan daawadayaal qaybaha kale ee barnaamijkeena dabagalka ayaan sii guda galaynaa magaalada muqdisho maanta waxaa lagu qabtay shir looga hadlayo badqabka suxufiyiinta waxaana jiray muddooyin ku dambeeyay caqabado wajahayay warbaahinta madaxa bannaan waxaa dadkii shirkaas ka qaybgala ka mid ahaa cabdalle axmed muumin oo ah xogayaha guud ee ururka suxufiyiinta ee SGS la yiraahdo ururkaasi oo ah urur dhowaan la unkay cabdalle oo soo dhaweynaya marka hore intaa kadib bal sawir guud naga sii madashii maanta looga hadlayay badqabka suxufiyiinta cabdullahi aad u mahadsantahay adiga iyo daawadayaasha universal meel kastoo ay joogaan habeen wanaagsan ayaan idin leeyahay shirka ku saabsan badqabka suxufiyiinta wuxuu ka dhashay ama daba socdaa qaraar golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay hore u soo saareen oo dhigaya ama sheegaya in caalamka wadamada dhibaatada saxafiyiinta loogu geysto wadamo badan oo caalamka ka mid ah loo helo hab ama wadiiqo ama qorshe howleed lagu badbaadiyo wariyaasha iyo dadka ka shaqeeya qalabka warbaahinta oo ay ka mid tahay in la sameeyo hab lagu soo tabiyo qaabka dhibaatooyinka loogu geysto isla markaana loogu helo isla xisaabtan dadka dhibaatada u geysta warbaahinta maaragta wadamadaasi ku nool marka iyadoo arrintaas la fulinaya ayaa waxaa loo xil saaray hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan dhaqanka iyo cilmiga ee la yidhaahdo UNESCO arrintaas ayaa ku daba socotay oo markaa arrintaasi ay la xiriirtay Soomaaliya sanadka hor ayaa laga bilaabay qorshe noocaas oo kale ah laakiin nasiib darro arrinta sidii la rabay way u dhaqan gali weysay ama way u shaqayn kari weysay ujeedaduna waxay ahayd in bahda warbaahinta Soomaaliya dadka ka shaqeeya iyagu hormuud ka noqdaan arrintaas oo markaa la helo hanaan ama wadiiqo ama qaab maaragtay warbaahinta dadka ka shaqeeya tacadiyada la kulma dhibaatooyinka la kulma iyo dawladda oo markaa dad qaybaheedii kala duwan laamaheedii kala duwan ay u wada shaqayn kari lahayn nasiib darro sidii marka arrinta saxda ahayd looma wajihin marka natiijo aan wanaagsanayna arrintaas waa laga dhaxlay tiiba hadda la isku dayay mar kale wasaaradda warfaafintu in ay marka boorka dib uga jafto laakiin anagu nasiib wanaag waxay ahayd inay noo yeeraan oo ay na weydiiyaan talooyinkiina waan siinay واي marka horta cidda badqabka suxufiyiinta laga rabo waayo waa su'aal aad u fiican marka ugu horeysa cidda xanuunsanaysa ama dhibaatada ay ku dhacaysa waa dadka ka shaqeeya warbaahinta dadka ugu badan ee warbaahinta ka shaqeeyeen waa warbaahinta madaxa bannaan Soomaaliya sidaad ogtahay kadib burburkii waxaa soo baxay warbaahin aad u tiro badan oo madax bannaan saxafiyiin Soomaaliyeed oo qalabka warbaahinta noocyadiisa kala duwan leh ka shaqeeya dalkan ay joogaan oo ka shaqeeyaan laakiin nasiib darro ilaa 1992 dalka waxaa ka dhacay dhibaatooyin aad u badan oo wariyaasha loo dilay marka dhibaato loo geysanay diiwaanka waxaa ku qoran 67 saxafi in dalka Soomaaliya lagu dilay 45 kamid ah waxay ahaayeen toogasho toos ama weerar toos ah oo shaqada ay qabanayeen darteed oo saxafiyiintaasi loogu geystay marka dadka noocaas oo kale warbaahinta ka shaqeeya ayay tahay in badqabka loo sameeyo iyagayna tahay inay hogaamiyaan oo hormuud ay u noqdaan iyagayna ahayd in kaalinta koowaad iyo labaad iyo saddexaadba laga siiyo laakiin waxaa moodaa in sida saxda ahayd arrintaas badqabka Cabdullaahi aan loo wajihin waana taas midda hadda keentay in hal sano kadib mar kale arrintu ay zero ama madhalays dib ugu soo laabato annaguna maanta marka meesha waxaan u tagnay waxay ahayd in talo arrinta ku saabsan aan siino oo aan u sheegno aan iraahno war adduunyada sida wax looga sameeyo hal looga sameeyo oo dadka badqabka warbaahinta ka shaqeynaya qaybaha kala duwan ee bulshada oo dhan ha ka koobnaadeen waa sax laakiin hormuudka ha noqdeen oo ha qaateen dadka ka shaqeeya warbaahinta iyo saxafiyiinta iyo ururadooda ha noqdeen haddii dabcan suxufiyiinta ay yihiin dadka dhibaatada gaarayso cidda la rabo inay ilaaliso badqabkooduna ay yihiin dawladda iyo dhinacyada kale marka loo eego guud ahaan nabadgelyada qofka suxufiga marka dawladdu miyaa iska leh waajibka ah in ay ka shaqayso sida loo badbaadin lahaa suxufiga mise iyadu waa garab ka mid ah garabyada la raba inay ka shaqeeyaan badqabka suxufiyiinta oo mas'uuliyada iyo isla xisaabtan qudheeda uu saaran yahay marka ugu horeysa dawladda mas'uuliyadda koowaad iyada ka saaran tahay ilaalinta iyo dhowrista badqabka suxufiyiinta waxaad ogtahay suxufiyiintu waxay ka mid yihiin bulshada bulsho weyntay ka mid yihiin
oo ay muwaadiniinta ah muwaadiniintana amnigooda iyo badqabkooda in ay sugto oo ay damaanad qaado waxaa u dhaartay dowladda gaar ahaan dadka amniga mas-uulka ka ah marka waajibkooda iyagu ku dhacaya suxufiyiinta arrin gaar ku ahaa jirto marka ugu horeysa suxufiyiintu waa dadka soo bandhiga dhacdooyinka wareed iyo arrimaha muhiimka u ah bulshada xagga ay u jeedsanayso go-aanna ku qaadanayso sidaa darteed marka suurtagal ma noqonaysa haddii suxufiyiintu ay baqayaan oo cabsi iyo ay ku nool yihiin amni darro in marka ay si sax u shaqeeyaan oo ay soo bandhigaan wixii looga baahnaa ee bulshada ay ka sugaysay arrinta labaad oo muhiimka ah iyadana waxay tahay suxufiyiintu waxay ku dhex nool yihiin shacabka bulshaday ku dhex nool yihiin haddii marka bulshaweyntii ay cabsi ku nooshahay iyadana waxaa adkaanaysa horumarkii dowladnimo ee wadanka uu gaari lahaa iyadana lama gaari karo sidaa darteed marka dowladda waxaa saafuulaya waajibka koowaad oo ah in iyadoo maadaama ay tashiilaadkii ama awooddii ay marka ku samayn lahayd wixii ay haysato oo amnigii iyada loo xil saaray amniga saxafiyiinta iyadoo ku dhacaya marka iyadaa mas-uuliyadda kuwaad qaadanaysa laakiin dad waxaa jira ay tahay inay kala shaqeeyaan oo hawshaas ay la qabtaan saxafiyiinta marka kaalinta koowaad ku leh hawshaas laakiin nasiib darro waxaa moodaa guddigii loogu talagalay arrintaas in la sameeyo in maaragta qaab boobsiis ah oo aan maaragta aad looga fiirsan iyo natiijadiisii oo aan markaas lagu talagelin waxa ka soo baxaya inay noqdaan natiijo aad u wanaagsan ayaa si degdega loo sameeyey laakiin waxaa moodaa hadda in hal kale sanad kale dib loogu soo laabtay circle zero zero dib loogu soo laabtay oo hadda la leeyahay marka sidii loo saxi lahaa marka nasiib wanaag anagu waan u sheegnay wasaaradda iyo dadka ka shaqeeya waan u sheegnay haddii la rabo in waxaan la hagaajiyo oo dowladda ay ku guulaysato badqabka saxafiyiinta waa inay u martaa wadadii iyo wadiiqooyinkii saxda ah ee loogu talagalay marka nasiib wanaag hadda maanta inay maskaxda ay soo laabatay iyo caqligii uu dib u shaqeeyey aad ayaan ugu faraxsannahay haddii dowladdu ay qudheedii noqotay dhinac qayb ka ah mararka qaar xadgudubada loo geysanaya suxufiyiinta dee miyaan dhihi karnaa iyada qudheeda ayaa ka shaqaynaysa markaas sidii warbaahintii ama suxufiyiintii loo badbaadin lahaa haddiiba ay iyaduba eedaysana tahay taa meeshay ku jirtaa waana arrimaha la soo jeediyey oo marka aad iyo aad saxafiyiintuna ay rabaan in wax laga sheego la yidhaahdo annaguna waan tilmaamnay dowladdu waa inay banaanka soo istaagtaa oo ay maarata iskaliin garaysaa si saxaan u dhahayna arrintaas waa inay iscaddaysaa oo ay isnadiifisaa iyadoo laftirkeeda sidaa isku nadiifisan kartan waxay tahay cabdullahi saan sheegay 67 qof ilaa 92 saxafiyiin dalkan lagu dilay 45 ka mid ah waxay ahaayeen dad si toos ah shaqadooda loo beegsaday marka haddii ay daacadnimo arrintu ka jirto dowladdu waxay u baahan tahay inay marka ugu horeyso qaado waxa la yiraahdo baaritaan ama investigation baaritaanka oo si sax loogu eegayo wariye kasta oo la dilay goobta la dilay meesha lagu dilay cidda dishay yaa loo tuhmay yaa loo xiray horay booliisku baaritaan mugu sameeyay arrintaas dambi baaristu maxay ka sameysay ama ka qortay marka haddii la helo kiisaska noocaas oo kale ah waxaa imaan karta kalsooni lagu qabi karo hay-adaha amniga iyo dowladda lagu qabi karo oo la dhihi karo alle dad bay ka tahay shaqo fiican inay qabato dowladdu ururada saxafiyiinta annagu aan ugu horeyno SJS aan diyaar aan nahay kaalin aan ka geysano arrintaas oo gacan ka geysano oo arrintan inay guul ku dhamaato oo sumcaddii wadanka ee ku saabsanaa barmadow baa Soomaaliya ku taala ee ku saabsan badqabka saxafiyiinka sidii looga tiri lahaa annagu diyaar aan inaan gacan ka geysano waxaa jira eedo loo jeedinaya suxufiyiinta qaar sidaan aragnay qaarkood waxay ku dhex milmeen dhinacyadii siyaasadeed ee dalka qaarkood mararka qaar waxaa lagu eedeeyaa in ay ka gudbeen anshaxii saxaafadda loogu talagalay markaas sooma oran karno dowladda qudheeda eed badan ma lahan marka la eego suxufiyiinta qaar qaladaadka ay ku jiraan arrintaas waxay cabdullaahi galaysa arrin aan anagu u naqaano anshaxa ama ethicska warbaahinta oo macruuf ah oo la yaqaano hadii jeer waxaa jira tababaro joogto ah oo socdo oo loogu talagalay wariyaasha in lagu saxo wax lagu baro taasna waxaa qayb ka ah arrinta ku saabsan anshaxa 2 usbuuc ka hor isla arrinta hadda ka hadlaysa ayaan kala hadlaynay warbaahinta ama dadka ka shaqeeya wariyaasha qalabka warbaahinta kala duwan gaar ahaan kuwa madaxa bannaan ayaanu kala hadlaynay oo aan u sheegaynay ololayaasha doorashooyinka ee dalka ka dhacay ama maamul goboleedyada ama kuwa guud ee dalka kusoo foolay wariyaashu waa inay ogsoon yihiin in kaalintooda ay tahay kaalin dhexdhexaadnimo kaalin ay u siman yihiin xisbiyada iyo musharaxiinta oo aysan ahayn wariyuhu in uu qaato dhinac oo uu la safto group ama koox gaar ah uu la safto ama uu ololeeyo xisbi ama
musharax gaar ugu ololay marka kaalinta wariyaha waxay tahay inay ku koobnaado oo keliya inuu tilmaamo oo uu soo tabiyo dhacdooyinka dhacaya oo ay ka mid yihiin kuwa ololayaasha doorashada loo gelayo laakiin uu u daayo bulshada in iyada ay qaadato go-aanka cidda ay dooranayso ee mas-uulka noqonaysa xilka ay u dhiibayso marka waxaan kula qabaa in arrinta ku saabsan anshaxa ay arrimo badan ka jiraan oo ay ka soo laabteen waxaana cabdulaahi sabab u ah ma jiraan wadanku ma leh macaahid waaweyn oo maaragta lagu barto qalabka warbaahinta gaar ahaan anshaxa waxa ugu badan ee la sameeyo waa tababaro yaryar oo maaragta muddo yar wariyaasha la siiyo waxaad og tahay sidoo kale dadka ugu badan ee ka shaqeeya warbaahinta inay yihiin dad aad u dhalinyaro ah oo maaragta muddo gaaban shaqeynaya khibradooda xagga warbaahintuna ay aad u yartahay laakiin taas marmarsiyo ma noqon karto in mar kastaba eedaha maaragta la soo jeediyo warbaahinta loo jeediyo annagu waxaan qabnaa eedaha noocaas oo kale in lagu saxo maaragta forumyada ama golaha la isugu yimaado ee tababarada iyo seminaarada ka mid yihiin doodaha ka mid yihiin kulamada keeda maalinta oo kala dhacay ka mid yihiin in lagu saxo ayaan qabnaa waxaa kaloo jirta in si toos ah iyo siyaabo gaar ah qalabka warbaahinta dadka ka shaqeeya wariyaashooba aan hadda jeer ugala hadalno arrimaha noocaas oo kale aan u sheegno in maaragta sumcaddooda ay dhaawaci karto haddii ay noqdaan dad meel gaar u ololayna marka arrintaas way jirtaa laakiin waa arrimo sixideeda ay socoto maalin walba waay ugu dambeyntii waxaad og tahay in caqabadaha jira hadda ay ka mid tahay in warbaahintu ay si madax bannaan xafiisyada waaweyn ee dowladda aanay warka uga soo tabin karin oo aanay goobaha u lahayn fursad ay ku galaan markay doonaan kuna soo gudbi karaan ama haddii xataa mararka ay warar ku jiraan aanay si madax bannaan u tegi karin taad beddelkeedin ay noqotay in xafiisyada ugu waaweynka sida kan madaxweynaha iyo kan ra-iisul wasaaruhuba ay iyagu meediyaha usoo diraan qayb yar oo la soo diyaariyey oo markaa wax badan oo ahayd in sharciyadda saxaafadda ku tacalluqa in lagu daayo ama qofka suxufiga la siiya fursad uu waxaan ku kala xusho aan loo ogolaanin arrintaa maxaad ka qabateen waa su-aal fiican arrintaas waxay noqotay dhaqan warbaahinta ku cusbaa oo soo baxay muddadii 2 sanadeed u dambeysay in aad iyo aad loo yeereeyey ama ciriiri badan ay dareemayeen warbaahinta madaxa bannaan awoodda ay u leeyihiin inay u helaan access ama ay u helaan gaaris ay gaari karaan goobaha wararka laga soo tabinayo oo ay ku jiraan xafiisyada dowladda iyo meelaha kale xafiisyada dowladda ka baxsan markaan dib ugu laabano dastuurka federaalka ee kumeelgaarka ee dalkan uu ku dhaqmo qodobkiisa 230 ayaa wuxuu sheegayaa in xogta dowladda ay hayso iyo tan kale ee maaragta shacabku ay u baahan yihiin in ay waajib tahay in dadka la gaarsiiyo oo loo soo bandhigo marka arrintaa horta waa arrin dastuuri ah waana ay tahay in siday tahay loo qaato loogu dhaqmo arrintaa marka ku saabsan xanibaadda la saaraya warbaahinta meelaha qaarkood xafiisyada qaarkood ay samaynayeen inay inta soo duubaan kilibyo ama codyo ay soo duubaan oo ay leeyihiin warbaahinta in sidaas looga sii daayo waxay ahayd dhaqan aad iyo aad wiiqaya madax banaanida warbaahinta Soomaaliyeed dadka ka shaqeynaya isla markaana ku ah maskaxdooda ku ah cay iyo aflagaado ku ah horay ayaan uga hadalnay dhowr jeer una sheegnay dadka warbaahinta ka shaqeynaya arrimahaas ay maaragtay ka digtoonaadaan oo ay iska ilaaliyaan xafiisyada arrimaha ku dhaqmayna waxaan u sheegnay inay maaragtay joojiyaan oo ay ka waantoobaan arrintaas oo aan loo baahnayn marka waxaan kaga faa'iideysanahay fursaddan in gaarista xogta ay dowladda gacanta ku hayso oo ay ka mid tahay xogta taala xafiisyada dowladda in loo ogolaado shacabka inay gaarto loona mariyo qalabka warbaahinta wariyaashuna meel kasta oo ay kasoo warrami karaan si jujuub la-aan iyo caqabad la-aan loogu ogolaado waxaa ka mid ah dhacdadii u dambeysay ee ka dhacday aqalka hoose ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo qaar ka mid ah warbaahinta madax bannaan loo sheegay in aan heli karin space ama meelo ay qayb ka mid ah xogaad moodinay qayb ka mid ah inay hadda soo celiyeen laakiin arrintaas qayb kaliya kuma ekaan karto waxaan ku baaqaynaa oo aan ku celinaynaa guud ahaan dadka warbaahinta oo dhan warbaahinta madaxa bannaan si siman oo markaa kala sooc la'aan ah in loogu ogolaado inay baarlamaanka ka soo warramaan sababtoo baarlamaanku waa hay-addii sharci dejinta hay-addii sharci dejinta lagama filayo inay albaabada soo xirato oo ay shuruucdii iyada ay samaysatay oo ku jiro sharci hoosaadka baarlamaanka uu ku dhaqmo oo qeexaya mar kasta oo kulan uu yeelanayo baarlamaanka in warbaahinta madaxa bannaan ay goobjoog ka noqdaan in marka baarlamaanka uu ku tunto lagama filayo marka waxaan rajaynaynaa golaha baarlamaanka waan kala hadalnay 2 habeen ka hor aad bay maaragtay noogala hadleen arrintan waxay isku dayeen inay doodooda si aad noogu soo bandhigaan naguna qanciyaan laakiin anagu dhinaceena ka urur ahaan waxaan u tilmaamayna u sheegaynay in loo baahan yahay space in la ballaariyo oo ay ku talagalaan in warbaahinta si siman inay meesha u tagto ay ka soo waranto marka kale waxaan ku celinaynaa
waddanka wuxuu galaya marxalad doorasho sanadka soo socda baarlamaankuna wuxuu ka mid yahay hay-adaha dowladeed ee muhiimka ah ee sharci dejinta qaabilsan ee la raba in bulshada uu soo gudbiyo waxa dalkan iyo doorashada iyo nooca uu aadaya iyo waxa markaa waddankan uu jihaysan doona sidaa darteed waa in baarlamaanka loo furaa wariyaasha loo ogolaadaa in shacabka xogta si maaragta furan ay u gaartaa cabdalle axmed muumin xogaha guud ee ururka suxufiyiinta SJS oo ii waramayay barnaamijka dabagalka ayuu kaasi ahaa gabagabada ayaanu soo gaarnay madaxweynaha Soomaaliya ayaa u ambabaxay maanta waddanka Ruushka shirka Afrika iyo Ruushka ayuu ka qayb gali doonaa shirkaasi oo la filayo inuu waddanka Ruushka ka furmo gaar ahaan magaalada caasimadda guud ahaan waa naga intaa barnaamijkii dabagalka wararka caawa waxaa farsamada iga caawiyay Guuleed Cabdi Salaad iyo Cabdiraxmaan Jaamac tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo